lanqayn doonaa Ethiopia dhawaan waxa magaalada Addis Ababa lagu soo gabagabeeyay shir ay yeesheen golaha dhexe ee xisbiga PP ee uu hogaamiyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyada oo shirkan uu ku soo beegmay xilli deegaanka Soomaalida lagu soo kordhiyay deegaano cusub oo degmooyin magaalooyin iyo gobollo wali uu muran ka taagan yahay arrimaha Abiy Ahmed uu ka hadlay waxa kamid ahaa khilaafiyada u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada iyadoo aan ogeyn markii deegaanka Soomaalida qaab dhismeedkiisii wax lagu soo kordhiyay in Oromada iyo Canfarta ay kaceen Abiy Ahmed halkaasi hadallo ayuu ka sheegay waan eegi doonaa bal hadallada halkaasi uu ka sheegay uu kula dardaarmay Oromada iyo Soomaalida jaamac baa la jooga jaamacada ku soo dhaweynaya ma sha Allah bal shirki Addis Ababa ee golaha dhexe PP ay isku yimaadeen waxa dabcan la filayay oo Soomaalida aad ay dhaw haysay in laga hadlo arrimihii lagu soo kordhiyay deegaanka degmooyinkii soo dhow intaas bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ya guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay salaamu alaykum magaalada Addis Ababa dhawaan ama maalin ka hor waxa lagu soo gabagabeeyay taban laba maalmood baa laga joogaa baan filayaa laba maalmood ka hor waxa lagu soo gabagabeeyay shirkii golaha dhexe iyo guddiga fulinta ee PP shirkade kulli waxyaalaha ay kaga doodeen iyaga garanaya waxyaalo uun maartay ay uun kulli u arkeen danahooda iyo ka hadlayeen shirkan deegaanka Soomaaliya dacwado badan baa horta laga gudbiyay maamulka Diradhabe uu dacweeyay maamulka Diradhabe oo hadda Oromo xukunto waxay yiraahdeen deegaanka Soomaalida anagu soo faafay waana Diradhabe meesha Soomaalida waa ubucdi Soomaalida waa deegaanka Soomaalida dhinac walba naga soo galay bay yiraahdeen dacwan ka nahay bay yiraahdeen deegaanka Soomaalida waa in laga qabto faragelinta iyo maxaan ku yiraahdaa ayto waxyaalahaas oo kale markaan maqlo Mustafa waan jeclaadaa moogtahay ها أنا وعارف إن لقى عوض مباراه إنه يسوي عوض مرة سو هاجر أرمدينا سيده كله أنا وعلى عشي لكن تا أرمدو والمدى يحاسك وي والمدى يحاسك واحد هذين ديجان سومالي ونوصو في ذي ديجان ما بدن بنجسو ريحي الدجال بدن بنوصو قاضي أنت يو أي سمينيين أي شيئين أوكي مركي يعني دوده كل أي سوس عدين نين اللي يرهدو عبد واسع بدي أيا وكهل أريمها ديان كسومالي وجده هذا كرهان أرنتي معمولة للسوكر دي هلك دليل وجه دي ما هذا ديان طبعا وحنا هلك كسب بحضي وهو ذا شقين إن أنا إلى هاين madaxda federaalka joogta dadka madaxda lagu sheegay ee federaalka joogay Soomaalida iyo kuwa madaxda deegaanka Soomaalida lagu sheego inaan wax wada shaqeyn ka dhaxaynin ee ay dad col ay yihiin oo aan dabka kala qaadanin iyo halka ka soo baxda Cabdiwaasac waxa uu sheegay qaab dhismeedka lagu soo kordhiyay dawladda deegaanka Soomaalida xilligan inuu yahay mid aan ka duwanayn kii maalmihii ugu dambeysay Cabdi Ilay wixii uu sameeyay 100 degmo 9 degmo iyo 200 maamul magaalo iyo 70 maxaan gobol maxay wili waxan يعني بقولكي أما سجالي سجاشن كي دقمو إمام الكاسمر كودا عي وكودا واقعي يضي مال مؤهر سنتها أيو لم يدي هاي بور كوي هرانا يعني قال له هاي نبور واحد دراسات قال له ما سمين نبور علمي بارس لما سمين نبور قيمين لما سو سمين نبور ما محب وحن نجت شاهل بحية واضح رمضي هالك chance بيكهش حيل هذا المويه لا يوحنا رجع قاضي يوم يلك كل قرنام ولي ها هي يسمعلي قبل أمك عودة وأي ربنا إننا نجا قاتان هل كاسا مركه حوجها بو يسويها مكان الشيء مركه مرسول كلام مركه عبد الواسع وحو فرصة وصل الحين منك أورمضة عبش مايا درين كشعب كسوماليات بكهذا أورمضة أول هو واقعيس هي ولا أن عدكود عيد قادة تشرين وأن المدرسة جيسة تشرين وعدكودي قاضي المدرسة وجي وشعب كديان سومالي شعب كديان سومالي دو كما ملها محاول لوسو كردية ملهن تذكر أقول بدنا كهذي أنا كوكاها ولا واحد سيدي كوهبون إدماءها وروح المحل لو بحيي ويجي ما واحد كلا جوستي يا هذا أنا جن لوجت جاي واحد محن كولا الدولة دي ما لو بحيي ما يعرف waxaan diidanay Cabdi Waas ana uu ka hadlay waxay ahayd war ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay wax loo soo kordhinayo wax cilmi iyo aqli ku fadhiya inay yihiin ee wax niman kala qaateen ma rabna anagu waad inta un baahan intii meesha wuxuu yiri degmooyinka iyo ismaamul magaaladii horay aynu u lahayn yaan dhaqaale loo hayn Ethiopia sagxaday ku socotaa goobtu ka sheegay deegaamada kale wuxuu hal magaalo lama soo kordhin magaalooyinkii jiray degmooyinka ya qaar in laga noqdo qarka loo saaran yahay dakhli la'aan iyo dhaqaale la'aan
idinku dawladda dhaxaad wax ka sugeysaan oo iskuma filidin oo dhaqaale ka sugeysaan marka maxaan ku afar gobol oo qaarkood geeda hoostood yihiin qaarna aan laba aqoonba haba yaraatay meelay ku yaalaan baa la garanayn xagee dhaqaale iyo dakhli uga keenaysaa xageeysa ku yaalaan goboladu waa tahay degmooyinka qaar baan jirinba laakiin ma baa la siiyay waxa laga taabahayna jaamaco ma horta xaqiiqdan ka hadlayna inagu ma aha fiiri inaga ilaahay baa ina leh ummadda Soomaaliyeed aniga waa isugu kaymid degmada hadda aan jirne dad la siiyay aan jirin baatay waa marka aad si dhaba ugu kuur gasho yaad ogaanaysaa ugu yaraan 7 goobood oo goobana ay ku nool yihiin maxaan ku ilaahay qoys laba neef oo ari haysta degmo laga dhigay goobana aan bini aadanba ku noolayn waata ya magacyadoodii la soo qortay rag baa halka nacfi ka raadinay meeshii yaani rag baa wax kala qaybsaday qiimeyn sax oo dawliya oo inta la soo maartay kormeeray daraasad lagu sameeyay la soo fiiriyay laga dooday bulshadeedii la qiimeeyay dhaqaalaha ka soo bixi karay ee dakhliga ay u baahan tahay wax walba degmo markii meesha laga dhigay laambi bay u baahan tahay light bay u baahan tahay waxay u baahan tahay ugu yaraan 12 gaadiid ay u baahan tahay shaqaale ugu yaraan 7-8 kun ay u baahanaysaa 5 kun 2 kun 3 kun dawladda dhaqaale uma hayso xaafadihii jigjiga qaar ka mid fiiri xaafadihii magaalada jigjigan biyo laga cabin biyaha aan laga cabin oo dameero loogu dhaamiyaa biyaha marka degmooyinkan iyo goboladan aan jirin lacagta lagu samaynayo ma jigjiga biyo loogu geliyo horta iyada caasimadii ah waata marka waxaan imanaynaa dad waxaa jiray ka soo horjeeday ansixinta deegaanada cusub ma lagama soo horjeedin cilmi iyo aqli ku fariisiya la lahaa odayaal waxa jira isoo joogay oo waxa weeye macna male kuwaas ka dhaaf kuwa Mustafa la dirsan yihiin anna Mustafa lama dirsanidee okay marka waa yahay dadkii ka soo horjeeday iyagu wax badan waxay sugayeen inuu meesha ka soo baxo la yiraahdo abiy iyo wixii waan ka laabanay odayaasha iga daa أبي مركب مكهل أهل الدجاج وكهل أبي وكهل رئيس الوزراء أبي أحمد علي وكهل سيفي عم وكهل وسود ويا أنا ولي بوانكو قنعي وحنا ربا هذا الرئيس الوزراء سبب إن له فليو ونقف أرما الله وأرد ديان كسومالي حيل أبي أحمد حيل أرما ده السومالي إسبدل ككهر وحي أي هاين هذا بقول ماشي أي كلا تشوجين هكلا تشوجان isbedelka kahor maalinka aniga la magacaabay in ra'iisul wasaaraha noqday halkii Oromo iyo Soomaali ay kala joogeen bartii waa inay kala joogaan hadalka marka sayahay hadalkaasi waa hadalka loo baahnaa dhammaan Oromada joogta deegaanka Soomaalida waa in la xaaqo si u dhanyihiin salka laga jigjiga dusheeda degmooyinka samaysteen makanisa miyaad maqashay waa in makanisa dab la geliyo saacadan hadda ciidanka deegaanka Soomaalida waa inay ku kacaan باي أمر هذا بحرية أمر وياها سببته رئيس الوزراء بأمر كبحية مركز أدور وأتكلم ها وقصب مدحوير مصطفى حنكرها يتليها عيدا كنحوجة ديجانك إن أورمال لجو علي ماشي أكتمي حكم إيمان الماشي إن عدايس بكتمي إن عدايس برك هذا اللون بار وين حبت سنك اللي يجري ولا كحيو أيضا لفولينا يا أمر كرئيس الوزراء هذلك ده أربع منافقين كمان ما يا وحرها كوا أنا أمر كاسم فولينا بوحدوني بهالنقطة أمر كان وإن سيت هاي اللوفليو وإن أورمو أيكون نقطة ماشي أي كتمين محاكي يلا دولة كتشجع واي مكانيسها محل لها وحين كذا أو بريء محنكو إلى هذا شدير واقعتين ملهبلا واقعتين ديجان كسومالي ولا مريشين عشان واقعتين مال ويدجين dadkii Soomaalida haba la hormaynay adoo iska joogay lagu yimaado lagu leeyahay saacadan laga bilaabo waxa tahay Oromo waxaad ka tahay maxaan ku yiraahdaa balaayad ka tahay kii kale aad ka tahay ama Oromo aan u kala abtirin qanaano Soomaalida wada abtiriyeen Soomaalida muhiimadu marka waxay tahay amarka ra'iisul wasaaraha in la fuliyo waa in la fuliyo sayt qaleylka la isugu xiro waliba wata Oromo markii deegaanada cusub ay deegaanku laga ansixiyay waatiide mucaaradkeeda iyo muxaafadkeeda wixii dhan bas wada raacday ma kuwii duur ku jiray ay isku aragti noqdeen abiina waxaan laga yaabaa maadaama ra'iisul wasaaraha wadanka yahay inay ka sugayeen inuu ku raaco arinta markaas inuu ka duwanaado oo uu yiraahdo waxay dooni ha noqoto waa run waxa loo qaadan karaa Oromo mowqif bay leedahay Oromo موقف بينه أورشيف هذا هو يدي بكو عيه أورمو أبي بيكو جورع أنت أمر كان أبي بحيي أمر كان أبي بحيي أيان أنه كوس عنينا ولا ربع سومالي ذا كل كان ديجان كسومالي ذو إنه كل دقاقه شعب كسومالي ذا كل كان ديجان كسومالي ذو وين لما أنت تبنان كأسوا بحان
oo mutaaharaad ku taageeraan go'aanka ra'iisul wasaaraha amarka ra'iisul wasaaraha ay ku taageeraan oo la yiraahdo Oromo out ها وين بحال هذا بيحي وين مدح الديريه maxaa laga dhowranaya wanaagna ma dhexyaala maanta anagii Oromo wax asxaana oo na dhexyaala ma jiraan nin naftaada u jeeda oo dalkaaga u jeeda oo deegaankaaga u jeeda wanaag in ma dhexeeyo Mustafa waxaan ka rabnaa adkaan baan ka rabnaa calool adag baan ka rabnaa ma calool adka Mustafa ha سؤال وكلام ما دماشن وحنا كوجيه لها بنك ربع أنا وحنا ربنا أمريكا رئيس الوزراء اللي فوريو هذا ديانك سومالي دنا شعب كنا كنت تاجران عد بوحة ومظاهرات وين دمان قبل الله يديجا ماذا اللي يسوون صباحه قولوا لي هذا استبدل كمالك أبي يميت هل كي أوروبا تشوكتي وين يكون نقط سومالي وين يكون نقط سومالي ما ليس سؤال دمالي إذا لقى قاتي قرنا دام ولا لقاتي إيريا دي كل جنيه مو يلا لقاتي عندما مركز هذا لقاتي أوروبا ها تشجع عندما قاتي وأوروبا وين لقى صوت ديجا مركز وحي قاتين ما تقيل بعض هاي ستة إذا كديان كسومالي وين يجلان أو أي ديان أوروبا أوروبا وحبل لما تشوكت أوروبا كليه إلا هم بالليا مهمة إنك استوقف واتاي هذا الكيس مركب محو كتر يا إياك هذا الكيس إياك هو ماشن حقيقة مركب لقاها الله أبي وأوجه أنا بدر هذا ورما إني وطا بس كم مرة عشان معناه إنه ما وكل رأسي أتوقع كل رأسي ما نسميين وكل رأسي إننا قال لنا مقشينيا لكن إننا سولينا ما مقشين مقشين تاسع أنا وحنا ضن نوع وأنا فعل أبدله أنا إحنا أمريكا رئيس الوزراء قالها الحين جودي يفرين تدخل هذا كيري أورمو يا صومالي ماشي أي كلا تشوجين إسبدل ككور وين كلا تجان ويكون كلا إكادان هل كي وين علي أورمو أمريكا قيل كاس وبحوي وإنسيته مدحوين مصطفى ولده قاب والبنا ولا استاجوا ويرى أمريكا رئيس الوزراء اللي فلنيا